halganka khawaarijta marka laga yimaado qofka la isugu tagi doonay taan la isugu tagay dagaalkiisu xalaasha yahay waa Siciidani waa khatar Soomaali hortaagan waa hal kamid oo xabad ku ridi doona haduu isku dagaal la yimaado ee dadka dhiigooda isugu xalaaleyn lahaa hadii uu la yimaado inuu taas sameeyo waa hal kamid ee dhiig dadka in isugu xalaaleeyay ku iman lahayd aaroodnimadu haday niman tuuga in badan u soo shaqeysay ay dadku dhibaateeyeen markan anaga waxaan rabnaa inay daacadnimo loogu shaqeyso daaroodnimada aan wada Soomaaliyeedna ku kabno wax ku tarno anaguna wax ku noqono Axmedow iska daa kuraas SSC khaatuma leedahay in aynu muran gelinay waxaan qaba kuraasta waqooyi been la sacno lagu soo xulayo waqooyiga Soomaaliya kuraastooda Siciid gurigaas inuu ku jiro waqooyi laakiin waa doqon Siciid saqinta siyaasadda Axmedow baa kamid Siciid baa kamid ka daaroodan u hayaan kaarka daaroodisamka waxay la soo baxaan markay iyagu dan shay fulinayaan kulanti wanaagsan saaxiibayaal sida aad u jeedaanba waxa dhinacayga fadhida walaashay Fahiimo Yuusuf Qooje qalasadii weyneed oo markii ay laascaanood ay xoreysay oo calankii midnimada ay ka taagtay hadda go'aansatay inay timaado Muqdisho si halkan uga dharaandhiso masiirka dadka reer SSC sidaan wada ognahay Muqdisho waa caasimadii waana halka ay taalo talada ummadda Soomaaliyeed Fahiimo waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda guud ee SSC Khaatuma imaanshiyaha hogaamiyaha SSC Cabdulqaadir Firdhiye ee Muqdisho iyo sidoo kale arrimo badan oo ku saabsan deegaanadaasi su'aalo dhowr ayaan weydiin doonaa inaga oo marka hore rabna inaan weydiino bal imaanshiyihii Cabdulqaadir Firdhiye uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho iyo ujeedada rasmiga ah ee socdaalka bismillaahir rahmaanir rahiim oo maasantay Axmed walaal soo dhawow oo ku faraxsanahay in fursadan aan isku helay waan ku siinay wareysigan waan ku soo dhaweynayaa si gaar ah si guud baan kaaga mahadcelinayaa booqashadii safarkii midnimada iyo nabadda qaybta weyn ka ahaydeen ee laascaanood maanta waxay noo imaaday madaxweynihii maamul goboleedka SSC Khaatuma Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye isagoo sharciyad haysta maamul maandheed buuxa haysta shalay toole markuu imaaday wuxuu waday calankii midnimada Soomaaliyeed laakiin sharciyad mu haysanin buuxda oo maamul maanta isagoo sharciyad haysta oo ka turjumaya waqooyi hadii tahay lixdankii oo kale markii la isku yeesay waxay ahayd Soomaha midowgii koonfuriga waqooyi kama duwanayn maanta tii oo kale ummadda Soomaaliyeedna guul bay u tahay deegaan ahaan iyo anaga si gaar ah guul bay noo tahay oo halkan aan muddo dheer ku jirnay midheerkiisii bay tahay imaanshahan waayahay marka laga soo tago inuu Cabdulqaadir Firdhiye Muqdisho yimid sida sheegaysana oo calankii midnimada halkan keenay dawladda federaalkuna ay shirki golaha wada tashiga ay ku casuntay haddana waxaa jira dhinacyo kale oo siyaasad ahaan ama deegaan ahaan ay isku heebihiin hogaamiyaha SSC oo qaba in wixii lagu mideysnaa ama deegaan ahaan tabashadii ay qabeen iyadoo aan la xalin inuu wixii lagu halgamay oo u mideeyo dawladda federaalka dhinacyo fara badan oo ugu horeeyo hogaamiyaha Puntland Maalweyne Boosaaso ka hadlay Saciid Cabdullaahi Dani maxaad adigu u aragtaa eedeynta noocaas aniga siday daba fahimahan Saciid Cabdullaahi Dani waxaan ahay dadka boqolkiiba boqol ka aragtida fog ma aha aragti fogaansho markaan ku leeyahay in aniga isaga in xoolo geela bahay leeyahay dhacay laakiin waxaan isku haysanaa waa masiirka ummadda iyo dibindaabyadiisa Saciid Cabdullaahi Dani marna inuu dadka deegaankayga dan u haynin oo uu ahaa khatar badan musabixi waan ogaa waayo Somaliland cadow la garanayo oo dagaal ku jiro waxay doonayaan la yaqaan deegaankayga ka ahaayeen laakiin cadowga qarsoon Siciid buu ahaa toorida dabada ka hayay waxa iska jirta siyaasad soo jireena oo hadda marka la yiraahdo isteediyada dadku iska 4.5 daaroodka kale niman baa jira siyaasiyiin oo dadkan aan qabiil ahaan iyo deegaan ahaan dan u hayn laakiin kaarka daaroodisamka inay siyaasadooda gaarka iyo danaha shay ay ku fuliyaan oo isticmaala kuwaas Siciid u yahay kuwaas lambar 1 u yahay waxaan qabaa aniga fahmahan markii al-shabaab laga yimaado khatarta labaad ee Soomaaliya leedahay halka cadow ay leedahay taa in la isugu tago ummadda Soomaaliya isugu tagto ee dalka shisheeye u adeegay ee shisheeye ka iibinaya aynu Puntland hadda ognahay deegaanada Puntland kamid ah xaafuun oo kale u gaday sida maxaa sheegay Calmadow oo kale uu hadda ku socdo wuxuu aadayaa baran baad maqashay baran ma socdo dahabka Calmadow buu wadaa Imaaraad marka khatarta Soomaaliya waa Saciid Cabdullaahi Dani waxaan Ilaahay ugu mahadiyaa inuu Ilaahay ka qabto ummadda Soomaaliyeed doorashadu sharxana dadka Soomaaliyeed dad dambi inta galay maaha inta la galay Ilaahay baa jecel oo ilaashanaya Saciid oo kale Ilaahay ka qabtay aan xukun ugu dhiibin Ilaahay baan ugu mahadinaynaa halganka khawaarijta marka laga yimaado qofka la isugu tagi doonay taan la isugu tagay
dagaalkiisu xalaasha yahay waa siciidani waa khatar Soomaali hortaagan marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka nagu dooro daaweyn qalliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii laakiin dad baa aaminsan inuu dantii deegaanka ama beeshaas Soomaaliya waa 4.5 baa wax lagu qaybsadaa inuu dantii beesha daarood uu ka shaqeynayo oo uu rabo inuu cadkii ilaahayeen uu soo dhiciyo Axmedow waan ku sheegay reerkayga waxa ku badan niman saaqadiin siyaasadeed oo badan bay leeyihiin saaqadiinta siyaasadeed Axmedow baa kamid ah Siciid baa kamid ah ka daaroodan oo hayaan kaarka daaroodisamka waxay la soo baxaan markay iyagu dan shay fulinayaan marka Siciidani hadduu dan daarood hayo waxa maanta macna u lahaan lahayd oo uu soo dhaweyn lahaa oo hambalyeyn lahaa oo xasan ku taageer lahaa oo xitaa hadduu taba shaqo bay u liqi lahaa in maamul saddex daarood soo kordhay cida faa'iidada qabta waa daarood tabashada aan maanta hawiye qabin cabsida ka qabin Soomaalida kale aan qabin oo madaxweynaha hawiye ku dhiiriday inuu bixiyo mandate-ka state saddexaad oo daarooda oo uu diidan yahay Siciid xasan iyo Siciid keeba wada dan daarood oo loo kala daarood budamaya marka maxay isleedahay waa maxay caqabada ugu weyn oo Siciid u dareemayo waa shisheeye wadada samaystay weeye Siciid wadada samaystay waa nin shay oo adeegaya guul kasto Soomaali gaadhay ama reerkiisu ha gaadho ama qabiil kasto Soomaaliyeed u gaadhay isaga guul daradiisa waayo de cadowgeena ma raba inaynu guuleysano laakiin marka hadda Siciidan ka tagno kale reerka siyaasiyiin badan oo weyn ka dhashay oo ugu dambeeyay madaxweynaha Xasan Sheekh Warey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo deegaanka si gaar ah looga taageero oo dadka ama xitaa shacbiyada meelaha ugu badan oo ku leeyahay deegaankaasi kamid aha hadda SSC oo kale markii la yiri waa maamul rasmi ilaa iminka Soomaaliya hambaliyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aniga habrtiis ana waliba Maxamed iyo Siciid laba eray oo karnaan ku sheegayo qadiyada Soomaaliya kaga aadan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo su'aashii rooday kama jawaabi karo marka uu leeyahay horta calooshiisa runta ee Soomaaliya sanaag deegaanada uga qorsheysan waa sidaas asa ka sala waxa dhintay nin abwaan weyn hayo Soomaaliyeed oo adigu garanayso oo madaxda qaranka Soomaaliyeed oo dhan iyo qof kasta Soomaaliyeed oo dacaqal loo garanaya uu tacsiyay waxa weeye jaamac kadiya cilmi masoo tacsiyay guul kasta oo isii khaatimo gaadhay ee ugu horeysay ugu dambeysay aqoonsigeedu Maxamed noo soo hambaliyay marka dadkayga deegaanka ka soo jeeda inay yihiin dad cadeefiyeen la isticmaalay 60 sano ugu dambeeyay daaroodiisamka loo isticmaalay oo la daarood baynu nahay inay yihiin wanuga laakiin maanta waaba u bariyay way kala barteen wax kasta daaroodnimadu haday niman tuuga in badan u soo shaqeysay ay dad ku dhibaateeyeen markan anaga waxaan rabnaa inay daacadnimo loogu shaqeyso daaroodnimadu aan wada Soomaaliyeedna ku kabno wax ku tarno anaguna wax ku noqono marka kaarka qabiilku faylkaas xaqayga waa ka soo xilmay anaga midnimo Soomaaliyeed baan u taaganna dantayadana markaan si gaar ah kugu taabtay madaxweynaha daarooda kuma jirtay madaxweynaha wiyaaba ku jirtay waayahay doonisteedii waxaan rabnaa halgan baa la galay halgankii SSC baa ka soo baxday marka laga reebo in SSC hadda dawladda federaalku ay maamul ahaan u aqoonsatay waxaa jira dad kale oo iyana aaminsan in aqoonsiga dawladda federaalku aanu rasmi ahayn weli oo dana siyaasadeed oo la leeyahay looga gudbayo muxuu muuqataa adiga Axmedow wakaas halkaasaan ku saxaya horta war madaxweyne iyo ra'iisul wasaare afkooda ka soo baxay waa dikreeto kulay dawladnimada qof weyn buu ka yaqaan hada ra'iisul wasaare afkiisa ka yiri ama madaxweyne yiri waa dikreeto weeyaan ka noqosho iyo may ahayn male marar badan way jirtay oo isii khaatimo miiskooda hadalka inta la yiraahdo waa aqoonsanaynaa sidii ra'iisul wasaaruhu taabtay oo Cabdiwali Cali Gaasraga kamid ahaa oo intaan xafiiska albaabkiisa la gaarin ba waraaqdeeda la jeexjeexo aan banaanka war ku soo bixin way jirtay marka war dikreeta oo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ay cadeeyeen oo yiraahdeen waraaqa ka soo saareen oo shirki madasha anagoo mandate haysana aanu fadhiisanayno wax danga har oo laga leeyahay ma jirto deegaankayga aniga 10 xildhibaan baa ku metela jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 6 kamid waa mucaarad aragtida Siciid Abdullaahi Dani ku shaqeysta 4 aqalka hoose ay gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare baa jahaynta siyaasadda deegaanka ee si khaatimo maamul goboleedka iyo federaalka kamid dhariyo oo ka shaqeeya marka hadii ay miisaamayaan cid ama Xasan iyo Xamse ka xiran tahay dan siyaasadeed ay eegayaan hadda kuwa cabanayaaba ma sidburs anaga marsaas waxyaabaha ugu badan ee hadda kuwa cadaysanayta in la raali geliyo waafi waa saaxiibkaaga safarka iyo dalxiiska haddii aad ku nooshahay qurbaha waxaad ku soo wici kartaa ehelkaaga iyo asxaabtaada ku sugan dalka miyi iyo magaalaba ka iibso waafi app xirmooyinka jaban ee usbuuclaha ama bilaha ah waafi app kala soo deg Play Store ama App Store waxyaabaha ugu badan hadda khilaafaadku ka imaan doona waxa leeyahay waxa kamid ah kuraasta hadda adiga ka dhawaajisay
SCC markii horena Puntland laga soo doortay يعني أظن مثل هذا هذا كراسة ديجان دورشة ضد إتاي لاس عانود يقبل كسول يسناك با لاس عانود با لقى صوت دوران دوران مثل هذا بس سيدي هراء بنتلان أي يلين بيو عليه أحمدو إسكت كراس SCC خاتم على هذا هاي إن أي مورن قرينه واحد قبل كراسة وقوي بين لاس عانود لقى صح عليه وقوي الصومالي كراسة سعيد هو قرقا سيرو كشري وقال لك وادق سعيد ودتك SCC شو هذا الشيء إيه الوداع هاي اللي وداعها وهل كميدو حبت كريدي دونا هادو يسكت قال لي مات إدت كان ليكود يسوق حلالين لها عندي ولي مدين تاسمه وهل كميد إديك إدت كان يسوق حلالين كوي من الله وحن قبا سيد بالله الدين هذا بكل العلني وحولها أي نكرت شنا موت شن يدو أنا صارني جدي كراغوريستا أولا معمول وده محش قال لي عسومي سكفتيشن لودري إمواي حتى أنا مرول بقوان كيجا دجالك يقوان كيجا هوري لحدي فبراير قوانك اسمه soo saareen aan ku dagaal galnay axbad ku bilaabantay wuxuu ahaa inaan nahay dad tashaday oo hoostiga dawladda federaalka Soomaaliya markasta Saciid baa qaldan geed saraska waa weyn waxa soo dhan wuxuu sameeynayo qadiyad inta leekayd 2000 qof u dhimatay magaalada dhan u dhintay dhowrka kun naafowday dumarku asida u qaadeen hooyooyinku ku goblamay waxa kale weyn toban kaaco waa saala 10 sano ka soo baxaan bas Saciid leeyahay waayahay waa soo gabagabeynina waa maxay fariintaada ugu dambayso ee aad u dirayso dadka SCC iyo guud ahaan haddaan si kale u dhigno harti oo dhan ama deegaanadaas fariinta aan u dirayo dadka reer SCC waxa weeye way guuleysateen cadow iyo nacam maanta wad kala garanaysaan sokeeye sheeyna waa kala taqaaniin shisheeye waa ninka jiritaankaaga umadeed dhuleed iyo dadeen aan ogolayn sokeeye waa ninka inaad jirto muuqato saamigaaga yeelato taariikhdaada qira inta ogol baa ah sokeeye way kala bartay dadkaygu waxaan leeyahay xamar waa magaalo Soomaaliyeed waxa taala taladii Soomaaliyeed qabiil ahaan hadda waxa ugu badan dadka sheegay waxay leeyihiin hawiye u booteen hadda tolkay cid ugu badan hawiye la macaamilo jirtay leef jirtay ayaga haayeen dawladda Maxamed Siyaad Baruuriday تيم حاب لا فرماتشو ردي دي بداية ugu badan ee daarood siyaasad cid ku gaarsiiso hadda tolkay cid tamaanta qaynaysa tabashada qabta ayaga geeyay asaanugu fahmaha waxaan qabaa dadka hawiye ama siyaasi ha noqdo ama shacab ha noqdo in dad gubayeen waliba reerkay ka fiican soddon sano inta dhibaato Soomaalnimo darteed u gaadhay ee burbur leh ee qarax leh ee dhimasho leh ee hal maalin dhowr kun oo qof inay ka dhimata leh Ethiopian dalkooda soo galay cid kasta leh inta u dhabaradaygay reer Soomaaliyeed oo dhabaradaygay inuu si jirinin dad goba oo midnimada Soomaaliyeed halkan dheer soo galay anaguna aan nahay laakiin loo kala dhaxeeyay maanta saan cid noo dhaxay aan cirus ku marnaa aan dhulus ku marnaa aan loo kala sheekeeyay waqooyi harti waqooyi iyo hawiye salay waxay ka bedeli doonaan Soomaaliya qurux badan waan tan maanta ay bay sameyn doonaan